isbeddelka cimiladu ma wax caadi ah oo iska dabiici ahba haa iyo maya muddooyinkii ugu dambeeyay cimilada wax badan ayaa iska bedelay laakiin isbeddelka zaa'idka ah ee aan iminka aragno maaha mid dabiici ah tani markii uu ilaahay dhulka dhigay muddo lagu qiyaasay 4.5 bilyan oo sano ka hor waxa isa soo tarayay kulaylka iyo qabowga waxaana sabab u ahaa qaraxyada volkaanooyinkii dhacay wareegga uu dhulku qorraxda ku wareego waa xaalad dabiici ah iminka markii ugu dambeysay uu koonku si weyn u kululaaday heerkulku waxa uu kor u kacay 5 darajo arrintaasina waxa ay qaadatay ilaa 10,000 oo sano iminkana 100 sano oo kaliya heerkulka qiyaastii waxa uu kor u kacay 1 darajo taas macnaheedu waa inay 20 jibaar xaaladdu sidii hore ka daran tahay saynisyahanaduna waxa ay caddeeyeen isbeddelka cimilada ee zaa'idka ah ee iminka jira aanu ahayn wax dabiici ah ee uu yahay wax ay dadku sameeyeen qaac badan iyo gaas ayaanu hawada ku shubnay kuwaas oo qarqiyay kulaylka qorraxda haddaba dabeecadda ma lagu eedayn karaa sida ay wax u jiraan maya